السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا مeel walba aad joogtaan kusoo dhawaada channelkeena Shire Media Production waxaan ka bilaabi doonaa warbixinooyin taxana oo aan kaga hadlayno taariikhda dunida iyo sidoo kale tan Soomaalida siyaasadda arrimaha bulshada dhaqanka diinta fanka iyo suugaanta fadlan channelkan hadaad ku cusub tahay taabo badhanka cas subscribe saar taabo barta yare channelska si aad u hesho xog walba aan soo galino una noqoto qofka ugu horeeya ee daawada toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa waa maxay guusha ama sidee loo guuleystaa kaasoo aan taariikhdiisa kaga warrami doono mid ka mid ah bilyaneerada xilligan dunida inoo lagu magacaabo Harlan Sanders ahna mulkiilaha beherada KFC 5 sano markii uu jiray ayuu aabihii geeriyooday 16 sano markii uu gaaray waxa uu ka tagay waxbarashada isagoo da'diisu tahay 17 jir ayaa waxa laga yeeray 4 shaqo sanad kadib uu guursaday sanadkii 19aad waxa uu noqday aabe 20 markii uu gaaray xaaskiisa ayaa ka carootay roosi ka haysatay gabadha kaliya ee dhashay dabad waxa uu shaqo yar ka helay maqaayad isagoo markii hore ahayd weel dhaqista markii dambana waxa uu dilaacay cunto kariye hasi daro shaqadaasi waqti dheer ma sii joogin oo waa uu ku fashilmay uu iska dayay inuu dib u la midoobo xaaskiisa iyo gabadha marar badan ayuu ku guul daraystay qorshahaasi inkastoo ugu dambeyntii uu ku qanciyay xaaskiisa inay soo noqoto dabad waxa uu bilaabay shaqada darawalnimo inuu ku shaqeeyo isagoo muddo kooban noqday darawal taxi hase yeeshee taasina ma noqon mid uu ka midho keeno ama uu ka dhaliyo hadafkiisii kadib ciidamada ayuu ku biiray muddo kooban waxa laga yeeriyay ciidanka dabad waxa uu dalbaday inuu barto qaanuunka jaamacaddu si weydiiday inay ka aqbasho codsigiisa ugu dambeyntii waxa uu wareegay dhanka suuqeynta iyo caymiska shaqadaasina sidii caadada ahayd waa uu ku fashilmay markii uu gaaray da'diisu 65 jir waxa uu noqday howlgab waxa ay dawladdu siisay lacag yar oo guna oo la siiyo dadka shaqada ka fadhiista lacagtaasi oo qiimaheedu ahayd $150 maalinta uu lacagta helay maalintii xigtay waxa uu go'aansaday inuu istilo maadaama uu aaminsanaa inuu ku guul daraystay nolosha kana gaabiyay xaqiijinta hadafyadiisii isagoo gacanta ku haysta warqad iyo qalin isugu qoro dardaarankiisa markii warqadda iyo qalinkiisa saaray waxay isu weydiiyay su'aalo badan waxa uu garowsaday inay jiraan waxyaabo badan oo ku fashilmay balse ay jiraan waxyaabo uu guul ka gaari karo tarinta go'aan degdeg ayuu qaatay lacagtii uu haystay ee $150 ahayd ayaa waxa uu ka isticmaalay ama uu kala baxay lacag qadarkeedu yahay $87 oo ka mid ah lacagtii waxa uu tagay suuqa waxa uu soo iibsaday khudaar iyo hilib digaag iyo sidoo kale maqliga lagu shiilo cuntada saliid iyo xawaash maalintaasi waxa uu ka dambeeyay waxa uu ka ganacsiga hilibka digaaga shiilan uu ku diyaarin jiray gurigiisa dabadna waxa uu soo wareejin jiray suuqyada tuulada North Corbin ee gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka muddo kooban kadib ganacsigiisii ayaa horumar weyn ayuu sameeyay macmiil badan way ku xidhmeen waxa uu gaaray da'da 88 jirka xilligaas oo ku beegneed 23 sano kadib markii uu shaqada bilaabay waxa uu ahaa bilyaneer dunida caan ka ah ninkaasi oo lagu magacaabi jiray Harlan Sanders sanadii 1990 ilaa 1980 shirkadii uu aasaasay oo hadda lagu magacaabo Kentucky Fried Chicken loo soo gaabiyo KFC waxa hoos yimaada in ka badan 20,000 oo maqaayadood oo ku kala yaala $123 ka tirsan caalamka taasoo qiimaha xilligan ay ku fadhiday gaadhiso adduun lacageed oo dhan $23 bilyan waxaana shirkadda labaad ee ugu weyn dunida ka ganacsiga maqaayadaha iibiya cuntada fudud dulucda sheekada ayaa ah wax walba oo loo samro in la helo balse marar badan nolosha ka mid ah aad guul daraysanayso taasi oo keenaysa mar walba aad guul daraysato inay tahay inaad guuleysatay warbixinta toddobaadkan intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa inta ku kulmi doona toddobaadka dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo